الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما safka hore ku wada tukataan ama mid meelahaas ka barjayo qaraabadiina hadduu laba jeer ku yiraahdo warniyo manaan baan kugu arkado baabur kula qalime ka waran waxaad oran waradu noloshidaad ka xuntay idaay karqabatee Soma waad ka raabsan waa mid meelahaas ka barjayo qaafila oo masaajidada iyo diintii Ilaahay cilaaqo la lahayn hadduu laba jeer riixun ku sheegaa saa u nixo oo sida u qarqariyo ruuxba ku dhacaya Muhammad alayhi salatu wassalam صادق المصدوق ما هو شيء إنه بلايا أدوية كوا أصيب دونته وعو بلايا هذا الله المستعان وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قد حفر اليوم أي فاطمة النبي أصوغ شيء ويكفر يساتي ويدنكتي 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 النبي عليه الصلاة والسلام إن أنتي markaasuu kaalay Faaduma arrinma ku sheegay dhagtu wax ugu sheegay waxay tiri waan lilma ka daadatay Faaduma Aisha arkaysa ummul mu'minin radiyallahu anha markaasuu nabigu haddana kaalay Faaduma arrin kala ku sheegay dhagtu wax kale ugu sheegay isla markiiba Faaduma haddana way qosashay ee faraxday Aisha maalin dambe u yeedhay oo tiri arrintii maalintaadii aabahani dhaxmartay ee marna ku oyday marna aad ku farxday ii sheeg markaabay tiri hooyo ku sheegi maayo sirtaas aniga iyo nabiga naga dhaxayso kuma sheegayo walaakin Aisha may halmaamine markii nabigu kaleey salaatu wasalaam adduunyada uu ka intiqaalay ay maalin u yeedhay ka tiri maadaama nabiga adduunyada ka intiqaalay sirtii adii nabiga naga dhaxaysa maanta inaad sheegto way ku banaantay ii sheeg markaasay tiri hadda waan ku sheegaya arrin sirta u horeysay kalilmay waxay ahayd waxa uu ii sheegay geeridiisu uu ii sheegay inay dhowdahay dadnawaan oo yeebeetiri oo inta adigu arkayseen sirta labaad uu ii sheegay ku farxay waxay ahayd wuxuu igu yiri hooyo Faaduma ay aamus miyaanad raalli ku ahayn haweenka ummadda nabi maxamed ee jannada galaya gabadha ugu darajo sareysa ugu barwaaqaysan in Ilaahay ka dhigay miyaanad raalli ka ahayn raalli baan ahay tiri riwaayad kalena wuxuu nabigu ku yiri haweeney aamus Faaduma ehelkayga qofka dhimashada igu soo xigay adiga aamus igu yiri dadna waan farxay bay tiri